بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 17 November 2011 wasxaafadeed ka soo baxay hoggaanka SSC shir ay isugu yimaadeen golayaasha hoggaanka SSC oo uu gudoominayay hogaamiyaha SSC ayaa waxa la isla gudoonsaday sida saddex qodob hoggaanka ka soo baxay shirka qodobka koowaad waxa uu leeyahay in aanu hoggaanka SSC ka qayb galin shirka taleex ee hadda qabanqaabadiisu socoto laba in hoggaanka ay u cadaatay in la majara habaabiyay go'aanadii shirkii London ujeedooyinna laga lahaa majara habaabinta go'aanadaas oo dhaxalgal u ahaa bulshada SSC saddex hoggaanka SSC waxa uu ugu baaqayaa dhammaan isimada cuqaasha jaaliyadaha iyo dhammaan shacabka SSC in ay ka digtoonaadaan qorshayaasha shirqool ee loo maleegayo shacabka SSC wabillahi tawfiiq wasxaafadeedku saddex qodob ka koobna sidaas ayaana ugu soo gudbinay warbaahinta maanta oo taariikhdu tahay 17 November waa salaamantiin afhaye adigu waxa tahay xogayaha warfaafinta maamulka SSC Umar Jaamac Salaabaan maxay tahay sababta aydan uga qayb galeen shirka London waayo hadda ka hor hoggaanka maamulka SSC wuxuu ka qayb galay shirkii hore ee ka dhacay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska shirkaas oo waxyaabo badan la isku wada hadlay isla markaasna ay ku heshiiyeen ururka NSUM iyo maamulka SSC wada uu san imika cadeen heshiiska dhexmaray maamulka SSC iyo ururka NSUM maxaa sababay in shirka labaad ee lagu qabanayo gudaha dalka gaar ahaan magaalada degmada Taleex aydan ka qayb galeen waad mahadsan tahay hoggaanku waxa uu ka qayb galay shirkii London 22 ilaa 24 April go'aanadii shirka ka soo baxayna wuu saxeexay go'aanadaas waxay ahaayeen go'aano dhaxalgal u ah bulshada SSC iyo gudiyadii ka soo baxay halkaasba arintaa wax badan baa hoggaanku taageeray waxa hoggaanka u cadaatay in markii shirkaasi uu dhamaaday fulinta go'aanadii laga qayb qaatay in aan go'aanadu fulin taas oo hoggaanku u tirinayo in ay arintaa qayb ka qaateen xubno ka qayb galay shirkii isla markaana la socday hawlaha gudiyadu in ay arintaa sabab u ahaayeen in isfaham waa wada shaqayn u dhaco wax badan ayaa hoggaanku waxa uu raadiyay in isfaham uu ka dhaco sidii loo fulin lahaa qodobadii oo ay kadib arintaasi waa fuli weyday hoggaanku tanaasulaad badan ayuu ka sameeyay in ay la isu dulqaato gabagabadii waxa cadaatay oo hoggaankii u cadaatay dhinacyadii kale ee hawsha wax ka waday in aanay talana diyaar u ahayn hoggaankiina wada shaqayntii ay ka goosteen ballamo badan iyo xiriir badan oo aan la samaynayna la iska indha tiray sidaa daraaddeed waxaa noo soo baxday in ay jirto in sidan ay dhinacyada kale ku qanacsan yihiin arintaasaana kaliftay inaanu bulshada u soo bandhigno aragtida aanu u aragno ku aadan in aanu hadda sheegno in aanan haddaanu hoggaanka SSC nahay aanan shirkan wax alla wax aanu kii saxiyadii London mooye wax ka dambeeyay aanu ogeynaanay jirin in aan wax ka ogaanana la diiday in aanu ka wada tashanana la diiday in aanu tanaasulaad badan samaynay oo isku daynay in aanu wax saxno oo wax la soxo oo shirar press hore oo kuwan ka horeeyayna aanu qabanay oo leenahay wax la soxo arrimahaas oo dhan markii ay ku dhamaadeen in aan wax haba yaraatay tanaasula laga samaynayn waxa annaga noo cadaatay in ujeedooyin laga leeyahay sidaana aan ku soo saarnay qodobadan ay ugu horeyso hoggaanka SSC inaanu shirka ka qayb galay